waxaan gacmahayga kor iyo hoos u ruxayay anigoo isku dayaya inaan gorgor yar baro sida loo duulo balse wax jawaab ah kama helin waxaan soo bixiyey jiir si aan ugu soo jiito haddana ma shaqayn awowgay ayaa ii sheegay in gorgorkan uusan si dabiici ah u duuli karin si aan u baro waxaan gorgorka saaray dambiil dabadeed xarig ayaan ku xiray oo kor ayaan u qaaday waxaan ku sasabayay cunto balse weli ma uusan dhaqaaqin markaas ayaan hoos u tuuray si kastaba ha ahaatee weli kuma dhiiran inuu baalasha furo maalintii xigtay waxaan gorgorka u qaaday buurta dusheeda anagoo wajahayna dabaysha ugu dambayn wuu furay baalashiisa kadibna si geesinimo leh ayuu u duulay wuxuuna sii duulay meel fog waan ka walwalay markaas ayaan daba orday gorgorku indhihiisa ayuu ku dhuftay xayawaan yar marmot oo uu doonayay inuu ugaarsado wuxuu si degdeg ah hoos ugu booday balse xayawaankii ayaa khatarta dareemay oo godkiisa galay sidaas ayay ugaarsigiisii ugu horreeyey u fashilmay kadib wuxuu bartilmaameedsaday ri mar kale ayuu weeraray markan hoos u degitaankiisu uu fiicnaa idiyihiisuna waxay galeen dhabarka rida balse gorgorku weli xoog kuma filnayn labadooduba waxay ku jiireen jiirada ugu dambayna ridi waa baxsatay gorgorku wuu soo noqday isagoo gargaar iga raadinaya waxaan go'aansaday inaan baro sida loo ugaarsado awowgay wuxuu xarig ku xiray dabada dawaco dabadeed cawska ayuu isku qariyey markii gorgorku hoos u booday isla markiiba ayaan xarigga jiiday si aan u tababaro xawaarihiisa isku dayo badan kadib gorgorku ugu dambayn wuu ku guulaystay inuu qabto bartilmaameedkiisa waan farxay balse awowgay wuxuu igu yidhi waa wakhtigii gorgorku dabeecadda ugu laaban lahaa waxaan dareemay murugo yar maalintaas waxaan gaarnay buurta ugu sarraysa waxaan macsalaameeyey gorgorka waxaanan siiyey gacan gashi qalin ah anigoo uu oggolaaday inuu cirka u duulo weli waxaan rumaysnaa inuu mar uun soo laaban doono jiilaalkii wuu yimid gorgorku wuxuu barafka ku arkay dawac sida la filayey wuu hoos u degay oo wuu qabtay balse si kama ah ayuu biyo qabow ugu dhacay webigu aad buu u qabownaa markii uu ku soo baxay dhulka xooggiisii wuu dhammaaday baalashiisuna baraf bay qabsadeen mana uusan awoodin inuu duulo wuxuu ku dhuuntay dhagaxyo hoostood isagoo sugaya barafku inuu dhalaalo wax yar kadib dhagax baraf afalanje ayaa dhacay nasiib wanaag gorgorku wuu ka badbaaday aniguna aad ayaan uga walwalsanaa waxaan galay kaynta waxaanan dhagaxyada saaray xabbado hilib ah anigoo rajaynaya inuu arko laakiin yey ayaa ishayda saartay anigoo argagaxsan ayaan cararay balse waan dhacay xanuun ayaan qayliyey yeydii si tartiib ah ayay ii soo dhowaatay si lama filaan ah rasaas ayaa dhacday awowgay ayaa wakhtigii ku yimid wuuna i badbaadiyey isla markaasna gorgorkii ayaa dib u soo duulay wuxuu helay cuntadii aan uga tegey taasi waxay ii caddaysay inuusan igu iloobin sannado badan kadib gorgorku wuxuu noqday mid aad u xoog badan waxaan ka siibay giraantii qalinka ahayd lugtiisa waxaanan siiyey xorriyaddiisii dhabta ahayd haddaba adigu ma jeclaan lahayd inaad gorgor koriso